wacan daawadayaal dalkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ay qoreen halkaad kala soconaysaan waa Somali News TV studio Muqdisho anigoo Fuad Shobla ayaa idin la socodsiinayo waliba Xamdi Faarac Usmaan qodobada wargeysyada caalamka aad ku maqli doontaanna waxa kamid ah jariirada The Mirror oo baahisay geerida gabar 9 sano jir ah taa oo markii ay cuntay buskut ay ku jiraan waxyaabo qaldan sidoo kale warbixinada kale ee xasaasiga ah barnaamijkeena aad ku daawo doontaan waxa kamid ah jariirada Daily Nation ayaa qortay in 58 qof lagu dilay rabshadaha ka taagan dalka Ethiopia sidoo kale jariirada la yiraahdo The World News ayaa qortay caruur 5 sano jir mataana ah oo u dhashay dalkaasi Thailand oo la isku darayo sidoo kale jariirada caanka ee lagu magacaabo Jerusalem Post ayaa iyaduna daabacday warbixin ka hadlaysa halka uu marayo wadaxaajoodkii u dhaxeeyay Hamas iyo waliba Fatah qodobadaas iyo kuwa kale aan idin qarinayno ayaad ku daawan doontaan wargeysyada caalamka iyo waxyaabihi ay qoreen markale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal warbixinta ugu horeysa iyo waliba jariirada ugu horeysa aan idin soo qabanayno waxay tahay jariirada lagu magacaabo The World News ayaa daabacday caruur 5 sano jir ah oo waliba mataanaha u dhashay dalka Thailand oo isguursaday jariirada The World News oo soo xiganaysa warbaahinta dalka Thailand ayaa warbixintan waxa ay ku bilowday sida tan walaalahan oo 5 sano jir ah oo haddana isla dhashay ayaa isguursaday kadib xaflad weyn oo loo dhigay guurkooda waxaana xafladaas ay ka dhacday dalka Thailand iyadoo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan xafladii loo dhigay labadan canug ee mataanaha ah dadka u dhashay dalka Thailand ayaa waalidiinta caruurtan u sheegay hadii caruurta mataanaha ah ee gabadha iyo wiilka ah ee hal mar wada dhashay la isku guurin waayo oo midkood u dhiman doono taas ayaana keentay in la qaato go'aankan in la isku guuriyo jariirada The World News oo ka sii hadlaysa qoraalkan ayaa ka diyaarisay dhacdadan la yaabka leh ee ka dhacday dalka Thailand ayaa waxa ay kaloo sii leedahay xaflada guurka ee loo qabtay caruurta ayaa noqotay hadalheynta ugu ballaaran ee ka taagan caalamka waxayna noqotay arrin aan caadi ahayn oo dadka qaar ay la yaabeen muuqaalo iyo sawiro laga soo qaaday caruurtan 5 sano jirka oo arooskoodu qabsoomay baraha bulshada lagu soo baahiyay waxaana la arkay caruurtan oo isku dhagan isla markaana ay farxad ka muuqato kuwaas oo la soo dhigay baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahinta caalamka qaar kamida jariirada The World News oo soo gabagabeynaysa warbixinteeda ayaa waxa ay ku soo ileysay sida tan caalamka waxa ka dhaca dhacdooyin kala duwan dalka Thailand waxa uu kamid yahay dhaqamada wadamada inta badan dhaqamadiisa lagu arko waxa ka duwan caalamka waxaana xaflada arooska ah ee loo dhigay lamaanahan da'da yar ee isguursaday ayaa waxa ay noqotay mid abuurtay hadallo kala duwan oo ku aadan qaabka ay u suura gashay in la isku guuriyo caruur aad u daayar oo haddana mataana ah oo wada dhashay intaasi ay nagu gudubno warbixinta ay daabacday jariirada lagu magacaabo The World News oo ka hadlaysay caruur 5 sano jir ah oo mataana oo haddana la isku guuriyay kana dhacda dalka Thailand ee Fuad Shoble waxaan u maleynaa warbixin aad la yaab weyn inay tahay caruur isla dhashay oo mataana haddana la isku guurinayo xamdi waa wax aad lala yaabo dabcan wadamada qaar ee Asianka sida Thailand China Japan waxa ka dhaca arrimo oo yaab leh oo arrimahan jinsiga ku aadan in wiili gabar isla dhashay la isku guuriyo in dabcan waxayna aaminsan yihiin dadkaas hadii مثلا labada mataana ay isla dhashay ee halka waqti wada dhashay hadii la isku guurin waa in midkood uu dhimanay sida warbixinta ku cad runtii waa mid aad u xasaasi ah haddana aad dhacdo la yaab oo warbaahinada caalamka aad u soo jiidatay qaybaha kale ee barnaamijka ayaanu u sii gudbaynaa insha Allah wali barnaamijka wargeysyada caalamka iyo waxyaabaha ay daabaceen ayaad daawanaysaan jariirada The Mirror ayaa baahisay geerida gabar 9 sano jir ah kadib markii ay cuntay buskud ay ku jiraan waxyaabo qaldan
jariirada The Mirror ayaa baahisay war sheegaya dhimashada gabar yar oo 9 sano jir ah waxaana geeridan loo sababeeyay in ay cuntay buskud ay ku jiraan waxyaabo qaldan oo keeni kara dhimasho. hase yeeshee warbixintan oo ahayd mid dheer ayaa jariirada waxa ay leedahay gabadhan ayaa u dhimatay xasaasiyad ay ka qaaday buskudka ay cuntay waxaana geerida gabadhan ay jariiradan kasoo xiganaysaa hooyadeed oo sheegtay in gabadheeda geeriyootay waxaana gabadhan lagu magacaabi jiray Isabel. gabadhan ayaa la sheegay in ay doonayso inay cunto baakad buskud uu ku jiro oo ag yaalay laakiin waxaa la sheegay in ay ku qaladay baakad kale oo buskud ku sawiran yahay laakiin la tilmaamay inay ku jireen waxyaabo qaldan taas oo kaliftay in ay geeriyooto gabadhan. jariirada The Mirror oo kasii hadlaysa warbixinta ku saabsan geerida gabadha ayaa waxa ay kaloo ay sii leedahay geerida gabadhan ayaa waxa ay qalbi jab ku abuurtay qoyska ay ka dhalatay gabadhaas oo geeriyootay waxaana ay sheegeen in arintan ay mudan tahay in bulshada ama qoysaska kale looga digo si looga fogaado arrimahan oo kale oo khatar ku leh caruurta aadka u daada yar. jariiradan oo soo gabagabeynaysa warbixintan ayaa waxa ay ku soo gunaanudaysaa sida tan si kastaba ha noqotee alaabooyinka cusub ee dhanka cuntada ah ayaa la sheegay in ay mudan tahay in si weyn looga taxadiro si loo ilaaliyo caruurta yaryar waxaana qoyska gabadhan ay u direen dhammaan bulshada caalamka. arrimahan ayaa waxay walaac ku abuuri karaan dhammaan qoysaska caalamka oo hadda si weyn ugu baarandegaya arrintan iyo saameynta ay ku yeelan karaan caruurtooda. taasna waxay ahayd warbixintii The Mirror laga daabacay gabadha 9 sano jirka ahayd oo u dhimatay buskud ay cuntay oo waxyaabo qaldan ku jiray. jariirada lagu magacaabo Daily Nation ayaa qortay in 58 qof lagu dilay rabshadaha ka taagan dalka Ethiopia. jariirada Daily Nation oo warbixin dheer ka diyaarisay rabshadaha ka jira dalka Ethiopia ayaa waxay qormadeeda ku bilaabaysaa sida tan ugu yaraan 58 qof ayaa la dilay toddobaadkii ugu dambeeyay rabshadaha qowmiyadeed ee ka dhacay caasimadda Ethiopia sida ay sheegtay cilmi baarayaasha caalamiga ah ee Amnesty International Arbacadii iyaga oo sheegay in tiro ka badan 2 jibaar ay ku qiyaasaan inta qof ee ay dhaawacyada ka soo gaareen rabshadahan qowmiyadeed ee ka taagan dalka Ethiopia. saraakiil kale oo ku lug leh baaritaankan laga sameeyay kacdoonka qowmiyadeed ee ka taagan dalka Ethiopia isla markaana tiriyay meydadka ayaa wakaalada wararka ee AFP u sheegay in guud ahaan 65 qof lagu dilay inta badan xaafado ku yaala galbeedka dalka Ethiopia. Daily Nation oo ka sii hadlaysa warbixintan ku aadan dadka ku geeriyooday rabshadaha qowmiyadeed ee ka jira Ethiopia ayaa waxa kaloo ay leedahay xaalad aad u xun ayaa laga soo sheegaya dalka Ethiopia waxaana sii kordhaya dadka ku dhimanaya iyo kuwa ku dhaawacmaya rabshadaha qowmiyadeed ee ka bilowday dalka Ethiopia waxaana jirta cabsi xooggan oo laga qabo dhanka ammaanka iyadoo saraakiisha Ethiopia ay sheegeen in la xakameyn doono rabshadahan ka taagan dalkaas. dhammaan dhibanayaasha geeriyooda iyo kuwa dhaawacmay ayaa laga soo warinayaa in lagu garaacay olole iyo waliba dhammaan dhibanayaasha geeriyooda iyo kuwa dhaawacmay ayaa la soo warinayaa in lagu garaacay ulo iyo waliba dhagxaan. waxaa kaloo la sheegay inay jiraan dad ay dileen ciidamada booliska ee dowladda federaalka Ethiopia maalintii Isniintii. Fisiha Tagle oo ah sargaal cilmi bare ah oo ka tirsan hay'adda Amnesty International ayaa sheegay inuu sameeyo cilmi baaris dheer oo ku aadan colaadda ku soo cusboonaatay gudaha dalka Ethiopia waxaana uu xaqiijiyay in baaritaankaas lagu dilay dad gaaraya ilaa 58 qof oo u badan dad rayid ah. Daily Nation oo soo gunaanadiisa warbixintan ay ka diyaariyeen qulqulatooyinka qowmiyadeed ee ka taagan dalka Ethiopia ayaa waxa kaloo ay ku soo gabagabeynaysaa sida tan dadka deegaanka ayaa u sheegay Amnesty International inay arkeen 8 qof oo meyd ah
maalintii Jimcaha. Waxa kaloo ay hay'adda Amnesty International u sheegeen ay arkeen ilaa 11 qof oo meydka marka la isku daro dadka meydadka ah ee ay xaqiijiyeen dadka deegaanka ayaa gaaraysa tiradoodu ilaa 18 qof ayuu yiri Fasiixa. intaasi aynu ugu gudubno warbixintii ku saabsaneed xaaladda rabshadaha ee ka soo cusboonaaday dalka Itoobiya iyadoo rabshadahaasi ay ku dhinteen dad gaaraya 58 qof. warbixintii ugu dambeysay iyo qaybihii dambe ee barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay markana warbixinta aynu soo qabanayno waxaa daabacday jariirada lagu magacaabo Jerusalem Post isla markaasina ay baahisay halka uu marayo wada xaajoodkii u dhaxeeya Xamaas iyo waliba Fatah. jariirada Jerusalem Post oo soo xiganaysa dhinacyada kala duwan ee Xamaas iyo Fatah ayaa qortay warbixin dheer oo ay kaga hadlayso halka uu marayo wada xaajoodkii u dhaxeeya ururada Xamaas iyo Fatah ee ka jira Falastiin waxaana jariirada ay ku bilaabaysaa sida tan. Jerusalem Post madaxweynaha dalka Falastiin Mahmoud Abbas ayaa ku dhow in uu ku dhawaaqo tallaabooyin cadaadis dheeri ah oo ka dhan ah Gaza iyadoo oo dadaalka Masar ay ku doonayso in la soo afjaro khilaafka awoodeed ee u dhaxeeya Fatah iyo Xamaas. labadii maalmood ee la soo dhaafay wafdi heer sare ah oo ka socda Fatah oo ay hogaaminayaan Azam al-Ahmad ayaa wada hadallo ku yeeshay Qaahira waxaana kulankaasi uu dhaxmaray saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka Masar iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Samiix si ay uga wada hadlaan khilaafka socda ee Xamaas iyo dadaalka lagu doonayo in lagu joojiyo xoreynta marinka Gaza. jasiiradda Jerusalem Post oo ka sii hadlaysa arrimahan ku aadan midnimada Falastiin iyo in ay u midoobaan xoreynta deegaanada Falastiiniyiinta ayaa waxa ay kaloo leedahay. Ahmed ayaa u sheegay saxafiyiinta kadib markii uu la hadlay Shark in uu soo bandhigay diblomaasiyiin sare oo Masar ah oo la socday Fatah oo ku saabsanaa awoodda sii socota ee Xamaas wuxuuna cadeeyay in Fatah iyo Xamaas ay ku guuleysteen in ay ku biiraan midnimada Falastiiniyiinta waxay ahayd arrin muhiim u ah in la joojiyo qorshaha Israa'iil ee Falastiiniyiinta ayuu hadalkiisa sii raaciyay. ilo wareedyo ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Fatah ay diideen dalabaadka Xamaas in ay ilaaliyaan ammaanka xakameynta Gaza iyo waliba in ay ururiyaan canshuurta. waxay sidoo kale diideen dalabkii Xamaas ee ahaa in dowladda Ramallah oo fadhigeedu yahay Ramallah ay soo galaan kumanaan shaqaale Xamaas iyadoo la raacayo heshiis labada dhinac. jariirada Jerusalem Post ayaa warbixintan waxa ay kaloo ay ku soo gabagabeynaysaa sida tan. madaxweynaha Falastiin Mahmoud Abbas Abu Mazim waxa uu ku qasban yahay in uu wax ka bedelo arrimo dhowr ah oo ku aadan maamulkiisa waxaana uu madaxweynaha ka walaacsan yahay xaaladda Gaza waxaana muuqata in dhexdhexaadinta labada garab uu hadda marayo meel qatar ah iyadoo eeda ugu badan la siinayo garabka Xamaas. warbixintaas ayaa barnaamijkeeni wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ay qoreen ugu dambeeyay. Fuad Shable iyo Xamdi Faarax ayaa si wada jira barnaamijka idinkugu aqrinayay. News TV Muqdisho ayaa ka daawanayseen mid lamid ah barnaamijkan toddobaadka dambe intaan ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.